Puntland ayaa la wareegtay diyaarad nooca qumaatiga u kacda ah taas oo ka qayb qaadan doonta dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda Daesh ee ku dhumaalaysanaysa buraleyda gobolka bari ee Puntland dalka ka caawiyay ayaan sidoo kale ku eegi doonaa warbixinteenan. Fahad Yaasiin ayaa isaguna ka hadlay dagaalka ay Puntland kula jirto muxuu ka yiri isagana warbixintan ayaan ku eegi doonaa waxa uu ka yiri balse marka hore waa kugu soo dhaweynaya YouTube-kayga waxa ka codsanaya hadii ay tahay markaaga kugu horeysay halkan soo boqoto inaad nagu soo biirto muuqaalka like noo saarto sidoo kale gambaleelka furto si ay ku soo gaaraanin warbixinada maalinlaha ah ayaan halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo Puntland ayaa maanta la wareegtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo loo yaqaano helicopterka taas oo ka qayb qaadan doonta dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee ku dhumaalaysta buraleyda gobolka bari ee Puntland. galabta ayaa qaar ka mid ah wasiirada iyo sidoo kale guddiga taakuleynta ciidamada howlgalka ka dhanka ah argagixisada Daesh ayaa diyaaradan ku soo dhaweeyay airportka magaalada Boosaaso. waxa la sheegay in ay diyaaradan ka qayb qaadan doonto dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ku dhumaalaysta buraleyda gobolka bari ee Puntland. diyaaradan ayaa la sheegay in ay ciidamada ka caawin doonto inay u geyso rasaasta hubka iyo sidoo kale in ay waxyaabaha dhaawaca oo kale ay ka soo qaado ciidanka isla markaasna waxyaabo badan ay ciidanka u fududeyn karto. waxa la leeyahay Puntland marba marka dameysa dagaalka dalal badan ayaa ku soo biiraya oo ka qayb qaadanaya dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ku dhumaalaysta buraleyda gobolka bari ee Puntland. inkastoo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku daday ayaa la leeyahay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ayna ka qarisay beesha caalamka ee Soomaaliya taageerta ilaa iyo hadda waxa la sheegayaa in saddex dal uu ka mid yahay Sacuudi Carabiya iyo dalal kale ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ku dhumaalaysanaya buraleyda gobolka bari ee Puntland. diyaaradan hadda ay la wareegeen guddiga taakulada ciidamada ayaa waxa la sheegay warar hoose ayaan ku helaynaa in ay ka caawiyeen dalka Sacuudi Carabiya inkastoo ay guddiga aysan wili faahfaahin dheeraad ah ka bixin oo lagu soo koobay. Puntland ayaa la wareegtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca taas oo ka qayb qaadan doonta dagaalka lama faahfaahin laakiin warar hoose aan helayno waxay sheegayaan in dalka Sacuudi Carabiya uu ka caawiyay diyaaradaas Puntland. Sacuudiga ayaa la sheegay in uu Puntland ilaa iyo intay dagaalka ku jirtay uu ka mid yahay dalalka sida weyn Puntland uga caawiyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh. waxa la sheegayaa in dhaqaale iyo sidoo kale diyaaradahan aan duuliyaha lahayn yaryarka ay droneska loo yaqaano in Sacuudiga ku caawiyeen Puntland. sidoo kale waxyaabo badan ayaa la leeyahay in Sacuudiga uu ku caawiyay Puntland inta ay dagaalkan kula jirtay kooxaha Daesh ku dhumaalaysta buraleyda gobolka bari ee Puntland. agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka hadlay madaxweyne Xasan Sheekh sababta uu hadlayahay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ayaa su'aal isweydiiyay oo qoraal u bartiisa ku soo qoray Twitterka ayuu yiri muxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga hadlayahay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh isagoo isku jawaabaya waxa uu yiri madaxweynuhu waxa uu dagaalka Puntland uga hadlayahay Puntland way kala fog yihiin duruufta Puntland ka jirta ma oga sidaas ayuu madaxweynaha uga hadlayahay ayuu ku yiri Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qoraalka uu ku soo qoray bartiisa Twitterka. qoraalka sababta uu ka wado ilaa hadda waa la garan lahayaa madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweynihii dalka Soomaaliya. Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedyada uu madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha u yahay ilaa hadda dad badan ayaa la yaaban sababta uu madaxweyne Xasan Sheekh uga gaabsanayo dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh. waxa la sheegayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu Puntland dagaalka caawiyo iska daayay in uu ku daday ama beesha caalamka ka qariyay dagaalka ee Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee ku dhumaalaysta buraleyda gobolka bari ee Puntland maadaama safiirada dalalka caalamka intooda badan ay fadhiyaan magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu kala hadlay dagaalka Puntland. waxa la sheegayaa in uu ku yiri dagaalkaas Puntland dana siyaasadeed oo gaar ah ayay ka leedahay marka khilaaf baan ayaa sidoo kale ka jira hadii aan
eegno dhanka dowladda federaalk Soomaaliya oo u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse khilaafkaas ayaa wuxuu waxa la leeyahay khuseeya dhulboobka baan ee ka socda caasimada dalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse waa ka soo horjeeda ayaa la leeyahay halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna uu waxa weeye ogol yahay in dhulka danta guud la iibiyo isla markaasna lacagtaas ay dawladda la wareegto Cabdiraxmaan Shukuur oo marka hadlay dhulka la boobay wuxuu sheegay in miisaaniyada dalka aan lagu darin lacagaha dhulka la iibinayo isla markaasna ay sharci darro tahay in dhulkaas la iibiyo dadka danyarta ana laga kiciyo haddii aan eegno dagaalka Puntland iyo meelaha uu marayo Puntland dagaalka ay kula jirto kooxaha Daesh waa mid marba mar ka dameysa ka sii adkaanaya awal sidoo ahaa ciidamada difaaca Puntland waxa la sheegayay maanta oo ay bisha ku beegneed 22ka bisha in ciidamada difaaca Puntland ay isku weer ka qabteen salgiyada ugu waaweynaa kooxda Daesh ku lahaayeen burleyda gobolka bari ee Puntland waxa xusid mudan in ciidamada difaaca Puntland maalnimadii shalay ahayd gaari la ilaa 3 gaari ay kala qarxeen ay miino u dhigeen hadii aan dhaho kooxda Daesh taasna ay ciidamada difaaca Puntland ka sii qaadeen dardar hor leh ay ku baacsanayaan ama ay ku sameynayaan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee ku dhumaaleysta burleyda gobolka bari ee Puntland waxa la leeyahay ciidamadeedu marba mar ka dameysa waxay u sii dhawaanayaan saldhigyada waaweyn ay kooxdu ku leedahay burleyda gobolka bari ee Puntland waxa la leeyahay kooxda waxa laga jaray biyihii raashinkii iyo sidoo kale adeegyadii kale ee caafimaadka ay kooxdu ka heli jirtay magaalada Boosaaso iyo meelahaas kale ay ka keensan jirtay maadaama ay ciidamadu wadooyinkii ugu badnaa ay kooxda wax u soo gali jireen ay xireen sidoo kale waxa la sheegayaa kooxda qaar kamid ah inay meel gaar ku go'doonsan yihiin oo ciidamadu ay meel gaar ku go'doomiyeen oo ay kala dhex galeen taasna waxa la leeyahay waxay Puntland u tahay markale guul daawadayaal hadii aad halkan nala soo gaartay wax ka codsanaya inaad YouTube-keena ku soo biirto sidoo kale muuqaalkan aad like noo saarto sidoo kalena aad gambaleelka furto si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino waana mahadsantiin